ilmahaas wax ay dhibadii ma laha dhagax in laga garaaco bay rabaan ilmo kibray dhag in laga siiyo gool loogu celiyo intaas baa abaalkooda ah ilmahaas yariska adiga ka cabsanaysaan miya abaalkooda la mariyay ilmihii magac laga badiyay ee shalay ee lagu magacaabo dhiba kale yiraahdo weeyaan Crystal Palace 6 gool bayna Liverpool dhalisay no 7 gool bay Liverpool dhalisay ya ogowna 7 gool in Liverpool ka dhalisay Premier League waa markii ugu horeysay sidoo kalena ogow Liverpool in shalay 7 gool ay dhalisay waxay ka dhigan tahay inay Liverpool hoggaankiina qabatay oo ay 6 dhibcood ku hayaan waxay ka dhigan tahay horyaalkii diyaar baan u hay inaan mar kale difaacdo 6 dhibcood baan ku hayaana way leedahay 7 gool ee lagu caynayay deenta lagu lahaana waan iska bixiyay idinka ma ay dhigi doona 7 gool laga dhalay anigu waan dhali baa hay ayaan meesha taale ya 7daad sheegayseen ee deentayd anigu halkaas baan ku tiiriyay 6 dhibcood hoggaankan ku hayaa runtii anigu waxaan arkayaa mar kale baan arkayaa nimankii xoogga badnaa ee shaqada diyaarka u ahaa runtii anigu Liverpool waa kooxda kaliya i waali karta ee Ingiriis ka ciyaarta maxaa yeelay waxay leeyihiin raganimo koob lagu qaadi karo waxay leeyihiin adeeg koob lagu qaadi karo waxa ka go'an shaqo bay diyaar u yihiin kuwa ka maxaa yeelay iyagoo ciyaarto kasta ka dhaawacan yahay Jota Campbell Kano ilaa Van Dijk ka maqan yahay haddana waa kuwa ka aan la celin karin Liverpool markay aragtay iyagoo cid kasta ka dhaawacan yihiin in iyaga la meesha ku si fiican markay waxay isradeen war waxaanu tawar ma hayaan maxaa yeelay fiiriya mar hebelo wali misalada soo safa marna hebelo kala herbaaladi soo safaya war dad dhintabaatiina ma noolidin baan idin leeyahay kooxaha Ingiriiska marka Liverpool wali shaqay diyaar u tahay dareemisa aanu Liverpool waxaan ku miisaamay shalay markay 7 gool ay dhalisay waxa hal mar igu soo dhacay ya in Liverpool ay soo jeestay bay igu soo dhacday Liverpool waa soo jeestay baa lagu yiri shalay mid bay dhaliyeen mid kasta shabaq u gaaray shalay illa ma uu badal ku soo galay haddana uu nawaalay mar buu yacni maani carooday markii la bedelay shalay waxa la leeyahay labada nin ee Afrika wiilasha cajabeed maane iyo Salah way carabaday markii la bedelayo laakiin madka farmiyaha la yiraahdo ma caroodo haddana goolashiis iyagu siiyaa waxa weeyaan uu niska daacado maskiina laakiin labada nin marka la bedelayo gafuurkay taagayaan way Ronaldinho way Messi shalay maani ayaa la bedelay Salah baa soo galayay waxa dhacday maani aad buu carooday sidee la bedeli karaa Mohamed Salah ma loo midda sameeyay labadu markasta way sameeyeen midda taa maxay leeyahay wuxuu ogyiin in Ronaldinho iyo Messi kiino kuwan kale galab yihiin laakiin Firmino waa wiil daacada waligiina waxa ma sameyn ayaa la leeyahay wariyaha kara la qodo shaqul gaalow marka warbaahinta Ingiriisku shalay waxay yacni aad u waxay yiraahdeen labadan nin way kibir badan yihiin markii la taabto xataa loo bedelo way xanaaqayaan wiilka ma xanaaqay maxaa dhacay ana idin sheegaya wiilashan wiil cajabeed waa wiilal Afrikaanna wiilashayna Afrika waaye waraawan wada qabnaa dhamaanteen anaga wax yar mudul qaadan karno ha fahmayaahe anaga waraawan qabnaa anaga waa nimankii ciyaar dhan Yurub baajibaan nahay anaga oo aan dhahnay sideen la dhihi karaa madow yooseen la dhihi karaa ciyaar dhan Yurub baajina anaga marka na fahmay idinka anaga waxa weeyaan wiilashan madmadowga caroonaya waxa weeyaan dadkan Afrika rada adduunyo dhibaatay ku soo arkeen dad nool baahan dadkan waa dad wada soo wareeray marka runtii way iska xanuunsan yihiin dadka kan waraaw bay wada qabaan waa sababta waxaan aqayaan baladu arkis jamliga seena la ay kara ciyaarna u joojinaan jamlig waa ciyaartii Istanbul bas qari BG garogna ka baxni hal habeen jamlig anaga darteen u baaqday habeenka dib u soo laabtay jamlig waxa ri wareey qolyaha Afrika nagu taabanina anaga marka waraawgeena waa la arkay goolka hore waxa dhaliya Minamino wuxuu noqday nin kale Japan oo goolka dhaliya ciyaaraha Premier League waana nin kale oo Liverpool ugu horeeyay gool dhalaya kadib Mane kadib Firmino kadib Henderson kadib goolka shanaad waxa ku noqday Firmino kadib waxa soo galay libaaxa leerta jiifa Mohamed Salah kabiirka qatarta badan ee Liverpool markuu soo galayna madax ayuu wash ku siiyo waana goolkii lixaad ee ciyaarta محمد صلاح دلي إسقى أيانا دلي جول كلو فانتاستيكا الله سوق العيبان لا يابيو وكسي جول كايو ردتي وحوها جول أنا وحوك خبر كرين جول هيا كستول هرجع أنتو سأقروا فيه تدخل بدحي وساس برون وجران هل كانوا كجليو تضرب جول تضرب جول بين ليفربول على سي وحنا عاوي تضرب عيار توي أو كلا فامينيو ماني روبرتسون أرنولد صلاح ماتيب إي تشامبرلين تاريخ ذا كوبا دعكت بريمي كما دعين إن هالكوح قولش أي دليسو أي عاويان تضبنين أو كلا دوان ولقيت كما دعين وحانا نقول هاي
liverpool waa soo jeesatayo mar kale championsku waxay doonayaan inay koobku difaacdaan marka waa kaayo runtii anigu waxaan leeyahay liverpool warka ay soo wado iwigayaa weyn oo waraajiri doonee bal wiishka hayiiro nimankii shalay 7 gool dhaliyay hoggaankana 6 dhibcood ku qabtay dadku qaar markay hoggaanku qabtaan way iska soo yar ku fayaan 2 bir kadib waa lagala wareegi karaa sida kuleeyo soo qabtay hoggaankan waa qolo badan baa soo qabtayo Tottenham iyo Southampton iyo Chelsea iyo waxa sidee dhaqaaqaan bariye ku fayaan laakiin nimankan waa nimanka dhaawac walba ay qabaan joogtayn kara maintain garan kara qaab ciyaareedkooda guulaha maalmay joogtaynayaan guusha ayaga hal kuwan iska soo yar ku fayaan marka liverpool oo shalay 7 gool lalisay deentiin iska guday 6 dhibcoodna hoggaanka ku hayso taariikhdu soo waxay leedahay kooxda xilligan oo kale hoggaanka hayso iyaga ayaa qaadi jiray Premier League wara jiri doone bal wish hayro Sheikh Mansour kooxdiisa baan arkay shalay City way badisay laakiin sida la raba City uma soconayso waxay City garaacday kooxda kubadda cagta Southampton oo baryahan weynaatay warkeeduna weynaaday runtii City Guardiola wuxuu yiri aad baan ugu fiicannahay dhanka possessionka ciyaarista shuudadka laakiin goolkii baa naga maqan hal gool u dhaliyay Raheem Sterling dhacdhacow ayay ku badiyeen City oo naftabana maalinta dhan laga qaaday Still City way badisay muhiimadda waa mid taa laakiin wali idin kuma filnaha hal gool kooxda Real ku qaadi kartaa ama kooxda badin karta kulmo badan waa kooxdu farninaysa gool badan si sanadkan goolash baa laga haystaayo waa ka dhacdhacow Kevin baa ka caawiya goolka waa kaayo shalay marka guusha ay gaartay darteed xoogaa yar City waa soo yar dhawaadeen oo dhawaasho dheerna ma ahan runtii inkastoo kulan baaqay gacanta ku haystaan mar shanaad bish la joogtay laakiin hadda lixaad u soo dhacday runtii shalayna waxa laga badiyay kooxda Arsenal waa xalaye yaa marba waxaan isri horta niyow Arsenal baa socotay bal remote-ka geyba taabaan u soo fiiriyay markaan tagayba Dominic Calvert-Lewin ayaa dhaliyay goolkii hore ee Everton waxaan iri ilaahay amarkiisa kuwaan adduunkan dhibkan leh ma loo keenay walaal hal mar leesaa u soo fiirinay ka war waan tagay u bisba waxaan markaas jibaal baan ka baxay xoogaa yar muuqaal waxaan isku kadib baan ma taqaanaa meeshii fiirinay waa ma tagayba Lewin baa madaxa gool ugu shubayo niman yaabin awaayaba dhihi jiriyo waa yaabay anigu waxaan iri kuwaan adduunkan ma dhib kaan leh ma loo keenay waa kaa loogu shubay balse waxaa leeyahay goolka Robbie Holding ayaa iska dhali balse ciyaartooyga Arsenal Nicolas Pepe ayaa Ghana u dhaliyay goolkii barbaraha ciyaarto ugu dhigay 1-1 inkastoo xalay uu maqnaa Aubameyang maadaama uu dhaawacnaa kadib midkii qalowga dheera ee miinihii dheera Yerry Mina ayaa dhaliyay goolka labaad ee ciyaarta Arsenal qaybtii koowaadba yaa waa lagu kala baxayo 45 daqiiqo markay ciyaartu ahaydna 2 gool iyo gool baa la sii marsiinayo sidaabana looga badiyay miyaan ku sheegay xilli ciyaareedku imisa kulan baa la ciyaaray waxa la ciyaaray walaal 14 kulan baa laga ciyaaray iweydi Arsenal meesa laga badiyay 8 jeer baa laga badiyay imisa u jiraan heerka soo laabtaan waxay u jiraan kaliya 4 dhibcood meeshaas ku xumata le ilmaha naga waarina naga wareerina yaa dhible may ku jiraan jugtale ma lagu haynaa ilaahay amarkiisa jugtale ma lagu haynaa Arsenal yaabku waa ka la garaacay xalayna maskaxdoodii madaxoodii uma nool dadka Arsenal taageera meesha waxay ku dhow yihiin inay ku waashaan oo ay waaw yiraahdaan midda kale ogow xanuunkii waa ka dhamaaday totally qof Arsenal taageersan maanta ilaa wada dhiigiisa sa u goyso xanuun guul darwiin ha ka helaan waa kaas maxay lin maalin jugta la gilaash ma xanuun dareema dadkan guulshi iyo guul daradii caadi looga dhigay macna wir xanuun ha dareemo waa kaas weydiyaad saaq wuxuu ku leeyahay maya anaga seeradii muulaabanayni uu ku leeyahay da wuxuu ku hadlayo xanuun dhan ma lahan oo macna ma ba xanaaqay muxuu ku xanaaqa nin sagaash jugta la gili weeyaane marka dhiigii dhan ba hadaad waxa weeyaan xanuunkii ayaa laga gooyaba xanuun dhan ma qabanaya cida tanba ogow Arsenal dhibtu weyn bay ku jirtaa